filimkan waxa uu ku bilaabmayaa Takayo iyo xafladda qalinjebinta dugsigiisa dhexe. Ardaydu waxay ka dalbanayaan in uu siiyo badhamaanta koodhkiisa si ay ugu haystaan xusuus ahaan, laakiinse badhanka ugu dambeeya waxa uu reebayaa si uu ugu hadiyadeeyo gabadha uu ka helay, waxaana uu daba cararayaa si uu jacaylkiisa ugu soo sheegto. Laakiinse waxa uu arkayaa in saaxiibkiis Sinakwa la joogto una qiranayso jacaylkeeda, laakiin Sinakwa waxa uu sheegayaa in aanu ahayn wax dareen ah dhankiisa. Takayo waxa uu tagayaa saaxiibkiis isagoo canaananaya una sheegaya ugu yaraan inuu siiyo badhankiisa xusuus ahaan, laakiinse waxa uu sheegayaa in aanu u hadhin wax badhana, waxaana uu siinayaa badhankiisii si uu iyada u siiyo. Takayo wejigiisa waa laga cabsadaa, laakiinse waa qof wanaagsan. Saaxiibkii yaraantiisuna waa Sinakwa inanka ugu caansan iskuulka. Iyagoo u socda iskuulka ayaa waxay arkayaan ilmo yar oo ku dhacay webiga, waxaana uu ka soo saarayaa webigii, laakiin ugu dambeyn ilmaha yar waa ka cabsanaya. Sinakwa ayay u haysataa hooyadii dhashay cunuga yar inuu u badbaadiyey, laakiinse saaxiibkii waxa uu sheegayaa inuu Takayo u badbaadiyey wiilka yar. Gabdhaha iskuulka oo dhan waxay isku laayaan si ay uga ag dhowaadaan Sinakwa, waxaana Takayo u sheegayaa asxaabtiisa iskuulka inuu yahay Sinakwa qof wanaagsan oo jecel deganaanshaha. Iyagoo wada socda ayaa waxa uu arkayaa wiil haysta, isla markiiba wiilku wejigiisiibuu ka didayaa waana ka cararayaa. Gabadhiina waa uu raali gelinayaa Takayo. Kadib Takayo saaxiibkii waxa uu sheegayaa in uu rabo inayna dadku ka cabsanin, si la meel filaanana waxa faraqa u jiidaysa Rinko, gabadhii uu ka badbaadiyey wiilka, waana u mahadcelinaysaa. Marka uu wejigeeda eegana waa uu ka helayaa. Kadib Rinko waxa uu sheegaysaa asxaabteeda inuu badbaadiyey wiil aadna uga heshay, misena waaba iyagii soo socda, laakiin asxaabteedu waxa ay moodayaan in ay ka heshay Sinakwa. Kadib waxay ka codsanaysaa inay keega la soo cunaan si ay ugu mahadceliso, waxaana uu ku odhanayaa Takayo waan kaa helay. Marka ay eegtana waxa uu ka odhanayaa waxaan ula jeeday keega. Aad ayayna ugu farxaysaa. Mar walba oo wejigeeda eegana aad ayuu uga sii helayaa. Waxa uu tagayaa xamaamka, waxaana uu malaynayaa inay Sinakwa ka heshay. Waxa uu sheegayaa inaanu lahayn saaxiib, waxaana uu siinayaa taleefanka, waxaana uu sheegayaa inay mar walba u baahato la soo hadli karto. Kadibna waxay tagayaan gurigii, waxaana uu weydiinayaa isagoo xanaaqsan Sinakwa sababta uu gabdhaha ku diido. Maalinka xigta Takayo waxa uu ku khasbayaa Sinakwa iyo Rinko inay isku darsadaan baraha bulshada si ay iskula soo xiriiraan. Kadib Rinko waxa uu sheegaysaa inay keeg kale u soo diyaarinayso ay qosashana waa sidan xaalkiisu. Wax yar ka bacdi waxa uu sheegayaa Sinakwa inay tahay Rinko gabadh wanaagsan, laakiinse Takayo waxa uu malaynayaa inuu ka helayba. Kadib Rinko waxa uu soo diraysaa Sinakwa message ay kaga dalbanayso inuu raaco ciyaarta dhici doonta. Isla ciyaartana waxa ciyaari doona Takayo, waana u baqanaysaa, laakiin ugu dambeyn waxa guuleysanaya Takayo, waxaana ay u soo ordaysaa dhankiisa si ay ugu hambaliyeyso. Laakiin Takayo waxa uu arkayaa Sinakwa oo gabdho kale la ciyaaraya, waana ka xanaaqayaa, waxaana uu sheegayaa inuu sheegayo in saaxiibtiis dareenkeeda uu ixtiraamo, laakiinse Rinko waa joojinaysaa iyadoo u dhiibaysa hadiyad keeg ah. Takayo waa uu ku farxayaa maadaama uu yahay keega uu jeclaa, waanay ku farxaysaa, waxaana uu sheegayaa inay tahay gabadhii u horeysay ee Sinakwa caadi ula hadlo, waxaana uu ka codsanayaa in ay garabkiisa joogto, laakiinse Rinko way ka murugoonaysaa wayna ka ooyeysaa. Marka uu weydiiyo waxa helayna waxa uu sheegaysaa inay wax isha ka galeen, waxaana uu sheegaysaa inay guriga ku noqonayso. Takayo waa uu ka daba kacayaa, waxaana uu arkayaa iyadoo ooyeysa, laakiinse isla markiiba waxa uu imanaya Sinakwa wayna israacayaan. Waxaana uu sheegaysaa Sinakwa inay mar walba isku dayayso inuu wax ka fahmo, laakiinse uu noqdo qof iyada dhibsanayaba. Sinakwana waxa uu sheegayaa inuu yahay qof fiican, waxaana uu sheegayaa markii ugu horeysay ee kulmaan in Takayo uu go'aansaday inuu la ciyaaro isaga xilli ay ciyaalkoo dhan u booteynayeen. Mararka qaarna uu si dhaandhaannimo la iskaga dhaqmo oon xumaan ka ahayn. Kadib Rinko waxay go'aansatay inayna isdhiibin maadaama uu yahay qof wanaagsan, waxayna ka dalbatay inuu caawiyo. Waqtigan Takayo keegii waa u xiray, waxaana uu rajaynayaa
labadoodii inay waqti fiican ku jiraan. Maalinka xigta Rinko waxaa u soo diraysaa message ay ku raali gelinayso inay agtiisa ku oyday. Isla markaana waxaa arkaysaa Takeyo hooyadii waxaana u sheegaysaa inuu iska sii dayn gabadha. Weli asxaabteedii waxaa u haystaan inay wiilka ay jeceshahay uu yahay Shinako. Laakiinse waxaa u sheegaysaa asxaabteedii inay ku daashay si ay u daba socotay Takeyo. Laakiinse markan asxaabteedu waxaa u sheegayaan inay ka caawin doonaan sida ay u hesho Takeyo. Waxayna qabanayaan kulan ay ku ballaminayaan Takeyo iyo saaxiibkii. Wayna shoogayaan markay arkaan Takeyo. Isla markiina waxay ku ordayaan Shinako si ay u weydiiyaan inuu xiriir leeyahay. Waxaana ugu jawaabayaa inaanu lahayn. Takeyo arrinka waa ka xanaaqaya isagoo weliba aad uga sii xanaaqaya in aanu dan ka lahayn Rinko. Kadib waxa uu arkayaa gabdhihii oo ka shactiraysanaya, laakiinse Rinko ayaa ka difaacaysa. Maalinka xigta waxa ay booqanayaan guriga cabsida. Waxaanu Takeyo u sheegayaa in aanu ka tegin Rinko. Marka bacdi waxaa ka dhacaya gurigii dab. Takeyona waxa uu duminayaa gidaarkiisa ay dadku uga soo baxaan. Isla markaana waxaa ku soo dhacaya loox weyn. Rinko waxaana u soo cararaya Takeyo oo ka qabanaya. Shinakona waxa uu Rinko ka kaxaynayaa meeshii. Kadib Shinako waxa uu go'aansanayaa inuu dib ugu laabto saaxiibkiis, laakiinse nimankii ammaanka ayaa ka celinaya. Rinko ayaa go'aansanaysa inay u tagto, isla markaana waxa ay ku daboolmaysaa qiiqii dabka. Sidaas ayuu ku soo badbaadinayaa Takeyo uuna ku noqonayaa geesigii goobtaas. Kadib Shinako waxa uu sheegayaa in uu hablaha u diidi jiray maadaama isaga wax ka sheegi jireen, kuna sheegi jireen inuu u egyahay goriile. Laakiinse Rinko ay ka duwan tahay gabdhaha kale kana fiican tahay. Asxaabtii Rinko waxay ka raali gelinayaan in ay Takeyo. Kadib waxay imanaysaa Kachami gabadhii uu ka heli jiray Takeyo. Waxaana u sheegaysaa inay halkan ka shaqayso. Waxaana u imaanaysaa Rinko. Waxaana ay weydiinaysaa Kachami in ay tahay qoftan saaxiibtiis. Waxaana uu sheegayaa in ayna dhacayn inay saaxiib noqdaan. Waxayna siinaysaa jaakadkiisii wayna macasalaaminaysaa. Kadib Takeyo waxa uu la murugoonayaa hadalka dhaawacay ee uu ku yidhi. Rinko waxay markaan go'aansanaysaa inay ka geysiiso asxaabteeda si ay uga soo ogaadaan Kachami wax. Kabacdi waxay u sheegayaan in Takeyo uu ka helay, laakiinse ayna wada kulmin. Waqtigan markay arkaan inay cadhootayna waxay u sheegayaan inay waxaasi ahaayeen waqti hore. Takeyo sidii ah ayay Rinko u soo diraysaa warqad ay kaga dalbanayso in ay kulmaan. Waxa uu ka noqnoqdaba waxa uu tagayaa Rinko. Waxayna u sheegaysaa inuu u raaco suuqa maadaama ay go'aansatay iyadii asxaabteedu inay u soo iibiyaan hadiyad Shinako dhalashadiisa. Waxayna u sheegaysaa inay aad ugu faraxsan tahay inuu raaco. Waxaanay tegayaan hodheel. Waxaanay weydiinaysaa inuu xiriir leeyahay. Waxaana u sheegayaa inuu leeyahay. Aad bayna ugu murugoonaysaa ilaa ay tegayaan bridge-ka. Takeyona u sheegayo inuu aad u jeclaa in bartan imaadaan isaga iyo saaxiibkiis marka ay yaraayeen. Waxaana u sheegaysaa inuuna qofna halkan ka daalayn joogitaankeeda marka uu la joogo qof uu jecel yahay. Marka ay aragto isagoo aamusan, waxa uu sheegaysaa inay dareemayso waxa uu dareemayo maadaama ay u malaynayso inuu isagu jecel yahay Kachami. Kadib waxa uu tagayaa Shinako isagoo ka dalbanaya inaanu ka oohin mar dambe Rinko. Markuu albaabka furana, Shinako waxa uu arkayaa inaanu jooginba. Kadib waxa uu tagayaa gurigoodii waxaana uu istaagayaa meel. Waxaana uu sheegayaa marka uu si caadi ah waxba u arki waayo inuu eego xidigaha isagoo arkaya sawirka hooyadiis. Waxaana uu weydiinayaa cidda uu arkayo. Waxaana uu arkayaa sawirkii Rinko. Maalinka xigta waxa uu tagayaa Shinako. Waxaana uu sheegayaa Shinako inaanu tagin xafladda oo ay lug xanuunayso. Waxaana uu sheegayaa inay Rinko joogto dukaankii xalwiyaadka isagoo ku dhahaya laga yaabaa inuu qof dhibayo hadda. Waxaana uu ku baxayaa si wali ah. Marka uu gaadho dukaankii waxa uu sheegayaa inayna maanta arag Rinko, laakiinse waxay weydiinayaan inuu yahay Takeyo. Waxaana uu sheegayaa inay Rinko uga warantay una baratay keega sida loo sameeyo isaga dartii.
Sinakwa waxa uu soo sheegayaa hadda inay Rinki joogto hudheelka hooyadiina waxay u sheegaysaa inay Rinka u sheegtay inay wiilkeeda jeceshahay iyaduna u sheegtay keegaga uu jecel yahay oo dhan. Waxayna u sheegaysaa inay iyaduba saas samayn jirtay marka ay aabihii jeclaatay. Rinka waxay hadda ka fikiraysaa waxa ay samayn jireen, waxaana u tegayaa xalwadla kale si uu uga soo dayo. Waxaana u sheegayaan inay garanayaan Rinko, waxaana ay weydiinayaan inuu yahay qofkii ay Rinko isaga dartii u baratay keega saa loo sameeyo. Kadib waxa uu ka soo baxayaa isagoo ooyaya, waxaana uu la hadlayaa saaxiibkiis oo ku dhiirigelinaya inuu jacaylkiisa u sheegto. Iyadiina waxa ay sheegaysaa inay weli jeceshahay, waxayna maqlaysaa dhawaaq u yeedhaya, waxayna u baxaysaa tiyoo ordaysa. Waxaana u sheegayaa inuu jecel yahay ilaa maalinkii ugu horreysay uu arkayba. Waxayna iyadna u sheegaysaa inay jeceshahay sidoo kale. Waxaana uu filimkii ku dhammaanayaa iyagoo jooga dhammaan xafladii dhalashada Sinakwa. Fadlan subscribe saar channelka si uu kuu soo gaadho wax walba oo cusub.